السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ودي سلام بدمان ملا بدون كجوتا وانا واسماعيل يتبقى قدامي السيون واسماعيل official كسر وهذا مركلي مقال عصب. فضلا هذا أذكر عصبتها يوتيوب channel كيغا سبسكرايب إنه صار مقال كلايده فكر كاغنا لو ذاك. انتاس واتكم أصدقاء تعيس ميسي. عاو حنكالتونا مس مانتا مس حادتان مقال كقدامي نسيت مقال كان مقال كهري أو أها DV Lottery Program aan kala doonaa barnaamijkaas oo ahaa barnaamij aan wada sugaynay muddo sanad ah. dad qaar waxaan u maleynayaa inay xariisan jireen 5 sano 3 sano 2 sano soo dhaafay aniga oo kala 5 sano xariisan sanadkan 5 igu ah. qof walba marka barnaamij nasiibkaaga waad haysataa oo ku faa'iideysan lahayd aad ku tagi lahayd wadanka Mareykanka kaliya waxaa laga baahan waxay tahay in aad xariisatid diversity visa programkaas electronic diversity visa program. midda kale waxaa jira website badan oo been ah oo dadka qaar ay lacag ka qaadan karaan. marka waxaan kaga digayaa inaa website-da qaar iska fiirsan website-ka saxda ah oo lottery-ga waa kana midka hadda u jeedaan aan soo galiyay oo kor saaran comment-ga hoose waa ka arki doontiin insha Allah. marka waxaan rabaa inaan intuso qaad screenshot ahaan video ahaan inaan ka duubo inaan idin soo geliyo step by step aan isla socono. laakiin waxaad ogaataan kaliya waxay tahay aniga midka hadda soo gelin doono tijaabin ah oo idinka kaliya aan ku tusay waayo fahmino. marka midaasna ha la ogaado. midda kale ciwaanka saxda waxaa ku qoran DV program.stat ama .state.gov waa DV program.state.gov. aad goolta insha Allah tacaala daawasho wacan. marka koowaad waxaad soo galaysaa googlahaada ama goromada galaysaa waxaad ku qoraysaa DV program.state.gov kabacdi okay dhehaysaa. intaan ka qoraa ka xidul qaato codka waan kor saaray. maxaa la jiray videogana mud aan geliyay markaas sidaas aan ku wadaa. markaa la isku dul qaato wax walba saan u sameynaa step by step ula socdo insha Allah tacaala la socdo. markaad gashid aad meeshan aadid hoos u soo soco waxaad ku dhufataa meesha cagaarta ah ee begin entry ah oo green ah. markaad ku dhufatid meeshaas waxa uu soo qoray aniga S5 ya ay soo bixi qof walba wax goon u soo bixina. marka iska fiiri capital letter mis xaraf waaweyn ayaad ku qoraysaa. xaraf waaweyn loo tago inaad ku qortid ama capital letter sad u kasaysidba. kabacdi markaad dhammaysid hoosaad aadaysaa submit aad ku dhufanaysaa. markaad ku dhufatid meesha muhiimadu part 1 meesha ugu koodinto waay. marka first name magacaada caadiga dhaxdu ka bilaabana fahmijido magacayga dhaxdan ku qoran aniga Ismaaciil. magaca aabaha midig magaca awowgana bidix. waxaa first middle last aloo tagana ku qortid. hoos u dagaysaa gender male ama female ku qoraysaa. meeshan kale waxaad qoraysaa bisha dhalatay maalinta dhalatay iyo sanadka dhalatay oo sida sharciga kugu qoran waa fahmino. baasaboorkaaga ama ID-gaaga adis si sharciga kugu qoran document aysid si sharciga kugu qoran ayaad ku qoraysaa. hoos u dagaysaa meesha magaalada aad ku dhalatay ama caasimadda ama wadanka aad ku dhalatay ayaa laga rabaa. Nairobi ama Soomaali ama Hargeysa ama Djibouti alagu tagay. meeshaas Kenya Soomaaliya Angola meesha ku dhalatay aad ku qoraysaa. meesha ku dhalatay Mali meesha aad aniga oo kala waxaan gelinayaa Kenya waa sabab walba kala aqaani. meesha labaad waxa qoran country of eligibility for the DV program. meeshaas sidaas ka haato yeesaas ka haato. meesha number 7 waxaad dooranaysaa waxay tahay sawirkaaga
aad dooranaysaa sawirkaaga saxda asoo nadiif ah backgroundkiis uu white yahay aad ka doorana meeshaas. ana sawirkayga waa kaasa ujeedin midkaas waaye midkan caadiga sidaas oo kale sawirkiis qofka sawirkiis inuu ahaado okay meeshaas waa adresskaaga adresska kulli ariga ma sheegi karo Soomaali ama ma sharxi kari wadada degan tahay xaafad aad degan tahay ama degmada waxaan sidaas laga rabaa meeshaas address 1 address 2 address 3 ari muhiimad waa laba address kala xinaa qortid waa okay waxaan qorahay wataasa First Avenue wadada koowaad meesha kale waxaan ku qoray 50 Street meeshan waxaan ku qoray 50 Street Islii ana oo kale waxaan ku qortay teed oo kale waa tusaale ahaan Islii waxaan ka deganahay wadada koowaad wadada shanaad wadada koowaad wadada shanaad waa Islii waxay kala leedahay wadada koowaad wadada labaad wadada saddexaad meeshaas Nairobi akasii tahay haddana isla district Nairobi aan ka nahay markteedu waa tusaale ilaa had anana maan xariisan marka tusaale in tusaale meeshaas waxaa biye postal code ama zip code kole Soomaali dadka jooga inaysan lahayn u malayna laga rabaa ka bacdi meeshaas kale waxaa laga rabaa Soomaali iyo Kenya da Soomaali jirta Soomaali ku xiriirsan hada Kenya jirta Kenya ku xiriirsan wax Soomaali la dhaha ma jiraan Soomaali ma aqoonsana DV lottery ama wadamada ma aqoonsana marka Soomaali ahaan aad ku xiriirsanaysa dadka reer Soomaaliland joogo sidaas ogaa hal uu taaraadina Soomaaliland meeshaas kale waxaad ku qoraysaa telefoon lambarkaaga oo saxda ah telefoonka aan qorahayo waa lambar fake ah wax kama jiraan ah intaas la socdo insha Allah lambarkayga caadiga ma aha waa lambar tusaale ahaan ka soo qaatay waay lambarkayga caadiga ma aha emailkaaga saxda ah qoraysaa emailkaaga saxda ah emailkaan qoraa emailkayga ma aha waa iska email caadi oo tusaale ahaan idin qoraya emailkaaga saxda ah ayaa loogu talagalay in aad halkaas gelisid ismaciil88@gmail.com marka waxaa lagaa rabaa emailka saxda ah inaad gelisid meesha number B confirm email address waxaa lagaa rabaa emailka aad qortay inaad mar labaad aad ku soo celisid aad qortid si lagaa confirm gareeyo meeshaas ku qoraysaa okay waxaan u malaynaa inaan isla soconno dabcan haddaad faham weysaan comment iyo laga wadaago dii sharaxo qofkii rabo in laga caabiyo ama u xareyno waa u xari doona insha Allah meeshaas waxaa laga rabaa kaliya waxay tahay high school degree primary lama rabo high school kaliya laga rabaa number 13 haddaad guuristay haddaadan guursan waxaa leedahay unmarriage haddaad guuristay waxaa leedahay marriage hadda ciyaal ku joogo ciyaal gilad isku joogin waxba magelisa uu tagay meeshan baatwanka waxaa lagu talagalay waxay tahay in aad iska hubisid wax walba saad u qortay inaad iska hubisid alaabo talagalay iska fiirisid markaad iska fiirisid wax walba ay yihiin okay yihiin okay laakiin hadday ahayn waa kalaabanay laakiin hadday okay yihiin meesha cagaarta ku dhafan ay qoran